magaaladan saynu ognahay leyrhkeeda iyo biyaheedu waa bilaash. Dadku shacabka ku nooli leyrhkii biyaha bilaash bay ku helaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي يا سوداء موقال عصب يدقن عصب waxaan joognaa deegaanka Geedeble oo magaalada Hargeysa jira 8 kiiloomitir marka looga kaco dhinaca waqooyiga. halkaasna maanta muuqaal ka diyaarin doonaa waana magaalada meesha laga waraabiyo ay fiilan ceelasha ugu waaweyn ee magaalada Hargeysa waraabiya. saaxiibayaal haddii tahay markii ku guureysa soo boqotaa kan fadlan subscribe sar saaxiibadana la wadaag. saaxiibayaal soo jeedaan waxaan dhex maraynaa oo dhex lugaynaa mid ka mid ah beeraha deegaanka Geedeble waxaan soo ogaan doonaa waxyaabaha ugu badan ee ka baxa deegaankan oo aad iyo aad u nimcaysan roob aad badan ku da'an. waxaan rajaynayaa si fiican la socotaan fadlan muuqaalkan haddii uu soo gaadho subscribe like share saaxiibadana la wadaag. saaxiibayaal hadda waxaan taaganahay mid ka mid ah beeraha deegaanka Geedeble. beerahan aan dhex joognaa waa qaar ka mid ah kuwa ku yaala deegaanka Geedeble. deegaankan waxa uu ku caan yahay beero sidoo kale waxa uu ku caan yahay biyo soo saar badan oo meesha magaalada Hargeysa biyaheeda laga waraabiyo. magaaladan saaxiibayaal sida la sheegay waxyaabaha u bilaashka waxa ka mid ah leyrhka iyo biyaha labaduba waa bilaash. qof kasta deegaankan degan leyrhka iyo biyuhuba waa bilaash. haddii suuragal noo noqoto waxaan wareysi la yeelan doonaa amba su'aal weydiin doonaa oo aan xogta deegaanka ka weydiin doonaa dadka deegaanka ku nool iyo sidoo kale dadka beerahan qoda. inta badan beeraha deegaanka ku yaala waxa qoda amba beera oo uga shaqeeya dadka leh dad ajnabi oo Ethiopian ah waliba Ethiopian badan ayaa ka shaqeeya. marka haddii suuragal noqoto dadkaas aan weydiin doonaa su'aalo la xiriira beerahan iyo waxyaabaha ay caanka ku tahay sidoo kale waxyaabaha ugu badan ee ka soo go'a beerahan ku yaala deegaanka Geedeble. halkan aan taaganay waa meel ka mid ah beerta oo marka ay shaqada hadda ay ka socoto. hadda saad u jeedaan waxaa la waraabinayaa meelahan oo dalag cusub lagu beeray sida markaa qolada ka shaqeynaysa amba inamada ka shaqeynaya ay sheegeen. waxyaabaha lagu beeray waxaa ka mid ah tamaato cusub iyo sidoo kale basal iyo liin qarbash waana waxyaabaha ugu badan ee ka baxa markaa meeshan. liin macaanta liin qarbashta tamaandhada qajiga basasha waxyaabahaas oo dhan ka mid ah waxyaabaha ka baxa ee hadda qaarna qaar ka mid ah laga guranayo qaar ka mid ah maxay hadda la beeray. garabkayga waxaa taagan axmed oo soo dhawow. maanta halkeen joognaa? aad baan u soo dhowahay saaxiib Ridwaan. waxaa magacaygu Axmed Cabdiraxmaan Maxamuud. waxaan joognaa deegaanka Geedeble oo ah deegaan taariikh weyn oo fac weyn ku leh Somaliland. waa dhulkii badbaadiyey dadkii aan ku jirin dagaalka ee civilianka ahaa xilligii dowladdiisii aad barre ay xasuuqaysay dadka reer Hargeysa. waa meelihii lagaga gaban jiray ama laga gabaadsan jiray diyaaradihii helikobtarada ahaa ee Hargeysa rushayn jiray. waa meelihii dadku in badan ay kaga badbaadeen geeri. waa meelo ku suntan halgankii SNM. intaasaan taariikhka saaxiib Ridwaan. deegaanka Geedeble muxuu kaga duwan yahay deegaanada kale ee magaalada Hargeysa ku hareeraysan amba Somaliland ku yaala? wuxuu kaga duwan yahay waxyaabuhu kaga duwan yahay waxaa ka mid ah horta dhul qurux badan oo dhul beeraley ah. waxaa kaloo kaga duwan yahay waa dhul maxaan ku dhahdaayey waa halka ay Hargeysa biyaha ka cabto. waxaan odhan karnaa waxa weeyaan waa hunguriga Hargeysa ee caasimadda. waa meesha dadka reer Hargeysa ay biyaha ugu badan ka helaan ama 90% ay biyaha ka helaan. waxyaabaha kaga duwan tahay waxaa ka mid ah magaalooyinka kale. magaaladan saynu ognahay leyrhkeeda iyo biyaheedu waa bilaash. dadku shacabka ku nooli leyrhkii biyaha bilaash bay ku helaan. intaasay kaga duwan tahay. marka dadka halkan ku nool leyrhka iyo biyaha iyo bilaash bay ku helaan. bilaash bay ku helaan. wakaaladda biyaha ayaa kafaalo qaada.
marka bilaash bay ku helaan. marka ma la odhan karaa fursad aad iyo aad u weyn bay haysaa maadaama asaasiyaadka ay ka mid yihiin leerka iyo biyuhu. Haa, waa la odhan karaa, boqolkiiba boqol waa la odhan karaa. Haddaynu reer Hargeysa nahay aad bay nooga fursad fiican yihiin, fursad fiican bay helaan. Waananu ku hambalyaynaynaa maamulka wakaaladda biyuhu inay shacbigii ay wax soo saarka meeshii soo saaraysay biyaha Hargeysa inay meeshani tahay maadaama ay ugu abaalgudeen leyr iyo biyo jaban. Aad baan ugu mahadnaqaynaa kuwaana. aad iyo aad waa mahadsantahay Axmedow.